Master taageerow taageertay maxaad ku taageertay caawa noo sharax. Master taageerow taageertay maxaad ku taageertay. السلام عليكم السلام عليكم. aad baa idin salaamayaa dhammaan dhalinyarta dulmidiin. waxaan rabaa caawa bal taageerayaasha dulmidiin iyo kuwa daalimiintuba inaan doodno oo aan ka doodno taageertay maxaad ku taageertay qoladan daalimiinta ee deegaankii bacsaday. yaan soo qabtaa waaba taageeraha daalimiinta ama taageeraha dulmidiina. far soo taag qofka u baahan la soo qabto. yaan soo qabtaa oo diyaar u ah inuu ka hadla ama dulmiga lagu hayo deegaanka ama taageer iyo dulmigaas oo bal noo micnaynaya sababta ku taageeray. aryaha farta soo taagay oon soo qabtaa. haye daalimiinta warkooda maxaad ka haysaan. caawa habeenkii dooda yaa meese jamaal soo dhowaa bay soo dhow. caawa waxaan rabnaa inaanu ka hadalno oo dood ka qabanno bal taageertay maxaad ku taageertay daalimiinta bal noo sheeg. weeye maariya saaro yahaya hadii xalay ku taageeriyay waryahaas daalimiinta ah. waa kaa qaaday bay waa kaa qaaday soo dhawa bay. dulmi diido dulmi doonaan aragne. haye ayagaan soo geli doona insha allah. walaalayaal halka iyaga aan kasii wadane qolada daalimiintu ayana halkoodi waxay kasii wadaan xarigii iyo tacadigii iyo baabi-intii bulshada iyagoo marba nashqad cusub oo ay dadka maaragtay ku dhibaateeyaan keenaya. nashqadaha ay dadka ku dhibaateynayaan waxay hadda marayaan inay yidhaahdaan siid yani waxaa la maqashay soomaalida ayagoo maaragtay isku aaneeya hab qabiil oo liyaa ninkaasi in adeerka hebelba u aanoobe. daalimiinta cabdi maxamed cumar ama cabdi ilay iyo kooxda xukuumadda xilyo xidhiidhnimo ku joog nashqadii waa bedeleen. waxay marinayaan inay yidhaahdaan nashqadii waa ay bedeleen oo waxay marinayaan inay yidhaahdaan waabaa nin seedi ku ahaa na soocaayo. ya fartaa soo taagto qofkii raba inaad soo qabto. waabaa nin seedi ku ah na soocaayo bal abid ya sheekiyada shaahid yaa maqlay waabaa nin seedi ku ah na soocaayo. adaan kusoo xidheena seedigaabaa na soocaayay sidaa daraaddeed waa in adiga kusoo xidhnaa. waa nashqadaha cusub oo ay keeneen qolada reer qolada daalimiinta ah. maadaama seedigaa na soocaayay waa inaan adiga kusoo xidhnaa. war xitaa nashqadii waagi hore magaranaysaa
isku ugaarsan jiro oo dekanada ahaydoo lagu dekanaysan jiray dadka waxay ahayd dee in adeerkaaba ama xoola iga dhacay ama in adeerkaaba ay dilay adaan kuwa aanaynayaa laakiinse eba lama maqasay diga ya ama odo inta lasoo qabta liyaada wiil gabadh aan dhashay waa qabi jiray baa facebooka naga soocay dowladdu sideedas facebookan waa iyada ku feejigane shaqo kale ma waysahayn meeda horumarkii ay lahaayeen korna waanu soconnaa ay lahaayeen taloo horumarkaas xaggee ahay horumarkay lahaayeen kor baan u soconnaa xaggeedu aaday oo iyada gabdhaha iyo maganaysa dhalinyarada qurbaha joogta oo ka hadlaysa dareenkooda maarata cayrsanaysa yaa arkay dowladda anaha facebook oon ka maaratay dadkii facebookkaasaa laga sugayay wartoodii dowladada laga cabaareyn jiray tviyada iyo raadiyayaasha iyo ay soo joojin jiray dowladda jilicsana waxay tahay dowladdani anaa cabdi maxamed cumar nin adkaysi darnida kaloo soo gaaraysaa adkaysin darnida yani waa maxay midada kale ba fulay baa tahay fulayga maogtahay maxasta iyo maaragtay maryoolida dib ugu noqon jiray markii ragga colku ay maaratay baxaan oo dagaal aadaan maxaa dumarka iyo waayeelka dib kugu celiyo maaragtay caruurta yaryarka iyo maaragtay hooyooyinkood iyo odayaasha waayeelka iyo maaragtay guryahooda iska tasbiixsanaya dib kugu celiyay awood aada ragga iyagaan isaga dhiciso oo kale ma weyday awood aada isaga kaya dhiciso ma weyday fadlan waa soo dhaweynayaa taageerayaasha daalimiinta waa soo dhaweynayaa waxaana diyaar u ahay inaan soo qabto oo aan waraysto oo aan la doodo oo idhahda maxaad ku taageertay bal maxaad ku taageertay noo sharaf biyaha iyo maaragtay baadka uu ku siiyey cabdi maxamed cumarow cabdiow horta weligay baan waxaan arki jiray nin maaragtay baasho qolof weyn oo fulaya sida hadda kaa muuqatana dee waa fulaynimadii ilmo maxas iyo caruur baad ku wareegaysaa halkan aad waxaad leedahay biyaan soo daynayaa biyii markaa dagaaladna waa go-ahaya ya clip aan soo geliyey aad iyo aad nin ragihi oo waxa weeyaan dee nool caruur iyo kuma wareega moogtahay maaragtay dumar iyo dad waayeela kuma wareega dee waxa weeyaan ragga la dagaalamaya ayuu iska dhiciya marka cabdi aan weydiinay maxaa dumarka cayadooda lagu sheegay horta bal iftilada taagan baa waxay tahay horta waxaa liyi dariska caddaan iyo madow waxaana waa kaa dhigaaye yacni ma aqaantaad u aragteen doollo codka shacabka doollo aan soo geliyey kii aan soo geliyey hablo reer somaliland oo ka cabanaya mid wasiirka deegaankooda oo caayay marka halkaa waxaan ohan karnaa casharkii cabdiiley oo gaaray somaliland laakiin waxaan ku aqaanaa dadka reer somaliland dad maaragtay dhaqan leh oo barnaamijkaasi ma kasii socon karo aanse isweydiina cabdow dumarka maxaad ku caayday gabdhuhu maxay galabsadeen dumarku soo kuwa maaragtay guriga kuu jooga maaha soo hooyadaa dumar bay ahayn soo walaashaa dumar maaha soo gabadhaa dhashay dumar maaha war gabdhaha aada caayaysid ee odagan xun ee waalan ee timaha jilicsanee waxa weeyaan aada xitaa maaragtay tarsiinta qaadkaa kasoo saari weyday marka maaragtay uu caytamayo oo dee sarqaanka ya cabdow gabdhaha maxaad ku cayda cayday cabdow gabdhaha maxaad ku cayda gabdhuhu maxay galabsadeen ragganse aadta tv-ga soo fariisay leedahay bahalkaa la yidhahdo waxaad tirahdaan hebel annagaa carruurta u dhalnay war idinkuna ma weyn aan ogeyn adduunku inuu isbedelayo yanaa masandana aan dhicin baad ka aaminsan tihiin cabdi maxamed cumar maxamed yaa horta base waa maxamed horta bal isaxa anugu maxamed iyo maxamed baan kala saari waayay ninku horta bal ninka magaciisa isaxa maxamed ba mase waa maxamed waxbaa dadku isku khaldan qaar waxay ku leeyihin waa maxamuud qaar waxay ku leeyihin waa maxamed qaar waxay ku leeyihin waa maxamed cabdi maxamed miya mase waa maxamed hadaa laakiin balada ma sixi karna oo iska cabdi ileygiisaan iska qaadanay illa waa naynaasi caymaa moogta cabdi iley yaasiin abti aad baan kuu salaamayaa soo dhawow caawa maku soo qabtaayo maganagala qayb qaadanaysaa ninkii waagii aanu rejigtiga wada ahayn aanu kirada sii jirno maskiinkaayo maanta baarqab noqday baarqab oo waxa weeyaan deegaankii oo dhan fiita walaari ka noqday
oo dumarkii alla ku diray dumarkiibaa alla ku diray geedkii dumarkaa rabbi maaragta waxbaa loo saara geedka dumarka maxaa lagaa siiyaaniyo maaragtay yacnaha ceeb weeyaane xarag waa u doorataa waa meeshaad ka soo baxday magaraysaa maxaa baalka ilaahay maarata gabdhaha ilaahay kugu dira magacaas wallahi caali baa cabdibilis waxaa jeedinaa iskaa joogi jiray cajiib ahaayo cabdibilis la oran jiray aad bay cabdi isugu ekaayeen marka cabdi maxamuud cumar maasha allah waa ii saxday maxamuud miya aad iyo aad aad iyo aad maradu hadda magacyadaas waa magacyo fiican oo isku aadan laakiin dee nin gabdhaha caaya magacaa looma bixin karo maalin kasta geedka gabdhaha maartay ilaahay wax u saaray odag waxaan umalayaa nin bahalka wax ka sheega ma ahane xafiiska iyo shaqada maba geli karaba ya farta taaga hadda yaan soo qabtaay mee gabdhihii xalayto maaragtay ila doodayo bar soo qabtay ninka haye habalihii xalay ila doodayo maaragtay ninka gabdhaha caaya taageeriyey yaa arkay nin bal yaa arkay nin gabadh caayayo oo gabadh kale taageerayso soo tii gabdhuhu isku wada cadowga ahaayeen waxa weeyaan sidii buu hantidii dadka u dhacayaa sidii buu dadkii u xirxirayaa sidii buu waxa weeyaan tarbaraysi u samaysanayaa sidii buu maaragtay 10kii shilin ee deegaanka laga gataba asagoo qeyb u leeyahay ninku ma dhargamiyaa horta ma dhargamiyaa ninku ma dhargamiyaa odagu dalaalinta gobolka doolo ugu horeeya guuleed cali garaa isagana waxaan leenahay guuleedow waxaad cuni ka dhawaato cuntay bariis iyo fadhaloon dadka shacabka ee waxa weeye khadkii laga jaray ee waxa weeye taleefonku xitaa waxa weeyaan hawada biisi laga dhigay oo aadan wici karin saaka deegaamadii oo waxa weeyaan khadkii bal yaa arkay magaalo dhan oo qeybna khadku u shaqeynaya qeybna usoo shaqeynaya yacni jigjiga dad qaybna waxay haystaan waybi qaybna internetka caadiga aha bay laayihin war horumarka aad sheegaysaan bal maad noo sheegtaan waa maxay sababta bahalkan la yidhaahdo khadkii loo jaray khadkii sababta loo jaray maxay tahay khadkii waxa loo jaray maad noo sheegi kartaa yacni gobolkan ama d d s i kama jirto xaalad deg deg sida oromiya gobolkan d d s i kama jirto yani wax maaragtay anti government ilaa hadda oo waxa weeyaan dadku haddayba anti government noqon lahaayeen oo la taageeri lahaayeen oo waxa weeyaan ay maaragtay nimankan daalimiinta ka hor imaan lahaayeen dee waxayba noo ahaan lahayd ya dad ayagiibaa dhibaataysan oo waxa weeyaan aan hadli karin oo waxa weeyaan aan xitaa xog nala wadaagi karin oo waxa weeyaan oon banaanka soo bixi karin oo waxa weeyaan qof kasta uu ku fakarayay talow macaawa lagu soo dhacayaa mise habeen dambe ya dadka noocaasa maxaad khadka uga tartay cabdiyow maxaad khadka u jartay maxaad qarinaysaa waxa aad qarinaysa oo khadka ummadda uga jartay waa maxay cabdiyow horumarkuma waxa weeye in barkii lasu soo dhacaa horumarkuma waxa weeye yaan qof hallin horumarkuma waxa weeye yaa aniga cidaan hayn caqli male cabdow makariga caqli baad cabdow horumarkuma waxa weeye 21 nin oo jifadaadaydi dadka ha u taliso cabdow horumarkuma waxa weeye wax xidid idaa iyo xigaara mooyaane xayndaabka talada cidna ama cid kale soo geli mayso war xitaa dimuqraadiyadda reer galbeedku ay sheegaan ee kuma dhigna taas dimuqraadiyadda reer galbeedku afkay waxay ka tiraahdaa haddii laba walaalaa tartan soo galaan oo labadaba la wada doorto waa inaynu aqbalnaa
maadaama ay cod ku soo baxeen. laakiin cabdow taasi ma dhicin. taasi ma dhicin oo waxa weeye iyadoo cod la ridayo ayaa haddana waxaad arkaysaa xeerka waxqaybsiga ama power sharinka dunida in maaragtay ay ku salaysan tahay bulshooyin isku raaca ama hab qabiil ama hab kalar ama hab gobol. sidaa daraaddeed cabdow ma naga dhaadhicin kartaa sababta aad waxa weeyaan 21 iyo in ka badan oo bulsho oo reerkaaga ama xidid kula ah ama xigaaladaada aad xukunka ugu dhiibto? cabdow dunida xaggee bay ka dhacday madaxweyne ku-xigeen horta ma aqaadisaan ugu yeeray madaxweyne magac bay leedahay marwada madaxweynuhu, sidoo kale magac bay leedahay marwada madaxweyne ku-xigeenku, laakiin maxaa loogu yeeraa marwada madaxweyne ku-xigeenka ninkeeda? caawa yaa magac loogu sameeya marwada madaxweyne ku-xigeenka ninkeeda? ma ninka labaad oo wadanku noqon yaa talo marwada koowaad markii maarata madaxweynuhu markuu hadda uu qabo madaxweynaha xaaskiisa waxaa loogu yeeraa marwada koowaad ee dalka ama deegaanka. madaxweynaha xaaskiisana waxaa loogu yeeraa marwada labaad ee deegaanka ama dalka. waayahay haddii marwadii ay ayadu madaxweyne ku-xigeen tahay balsaygeeda maxaan ugu yeernaa? madaxweyne ku-xigeenka deegaanka ee DDSI saygeeda maxaan ugu yeernaa? mar haddii waxa weye madaxweyne ku-xigeenku hadduu nin yahay marwadiisa loogu yeeri lahaa marwada labaad ee deegaanka, halka marwada madaxweynaha ee deegaanka loogu yeeriyo marwada koowaad ee deegaanka. cabdow bal magacaa markaanu helnaan kula wadaagi doonaaye aan idin su-aale xaggee lagu arkay marwo madaxweyne ku-xigeene misna ninkeedu istaaf yahay? xitaa taytalka iyo haykalka iyo sharafta madaxtinimada ma ilaalin weyne. dee waxaa la qaatay intaad gabadha dumaashida ayay ka dhigaysay madaxweyne ku-xigeenka inaad ina adeerkaa toos uga dhigatid, sababtoo ay tahay waxaa ku ceeb ah in ninkeedu istaaf yahay ayana madaxweyne ku-xigeen tahay. sharafta iyo haykalka waa la ilaaliyaa madaxtinimada. waxaan oran karnaa nin adiga qori kula daba taagan oo istaaf ku ah ayaa marwadii madaxweyne ku-xigeenka ahay saygeedii. cabdilajabba oo kusoo dhaweynayaa mudane maku soo qabtaa caawa bal aad nala wadaagtay wixii xoga magaranaysaa naga dambeeyey oo adaa moogta aad xogaha u helo oo waxa weeyaan hadda dagaal culus lagu hayaa aan kusoo qabto mudane. masle jamaal abaayo maxaan ugu yeernaa madaxweyne ku-xigeen marwada madaxweyne ku-xigeenka ninkeeda magacyo ugu yeernaa? aad loo sheega dee waxaan ugu yeerno waxaan maqli jiray alaaba maaragtay xukuumadaha maaragtay keligi taliska waxyaalaha lagu yaqaanaa waxaa kamid ah ahna madaxtooyadiiba hal xaafad bay kusoo urur. bal fiiri qadar dheere barsanyare bal ila laba qeyb mise laba go-ol oo ah bal odadiiyo asna goboladii maaragtay dhexmarka ah. waxaa jira maogtay qolyahan maaragtay qaadka qaada ba waxaa jira nin aan ninka qaadka sida ahayn iyo gaariga ninka wada oo liyaado maaragtay waraaba qutur ama dhexmar. odagii dhexmar bay ka dhigeen goboladoo dhan wuu xukumaa baa liyi asigaa guddoomiye ka ayta gobola. wiilashii qaar waa hogaano, qaar waa sirdoon, qaar waxa weeyaan maaragtay qaybo meel bay joogtaa. had magaca baadhe nasra magaca naga baadhe dabadhow lama rabo magaca soomaalidu qaban ka dhan dabadhow waa gadaal hadii laga hadla waa ceebe magac waxaa rabnaa ku fiicano. ninka maamadan dhahaynaa iska daa anaa kaa fiican ninka maamada xaajiga xaajiyada sanyare xaajiga xaajiyadow
dabadhoon laba qaadi karo dhuusanuug baa dhaamay marka maaragtay islaabaha qaadka kale daba fadhiiso soo maarago bacday usoo qabta waxa la yidhaha dhuusanuug marka sayara aweera dhaadaa xaajiga xaajiyadda aweera dhaadaa dhuusanuug ya gabar mudug inaad magaca nala raadi adaa ree mudug aad bay magacyadoo helaaday maxaa loogu yeerayaa ninka qaba madaxweyne ku-xigeenada deegaanka soomaalida Itoobiya magacyo loogu yeeraa bal waan garanay marwada koowaad ee dalka marwada labaad ee dalka garanay waayahay marwada koowaad ee marwada madaxweyne ku-xigeenka odageeda xaajigeeda waa in maanta loo sameeyaa magac soomaalida ila madaxweyne waxa noqon kara gabar ma ogtiin aasa idaaja midnimo adaa wariye ah oo waxa weeyaan arrimahaas maaragtay aad ugu dhundalole maxaan ugu yeernaa madaxweyne ku-xigeenada deegaanka xaajigeeda magacyo loo bixiyaa magac bixin baa caawa loo baahanya haddii marwadii koowaad madaxweynaha tahay marwadii labaadna madaxweyne ku-xigeenka xaaskiisa tahay maxaan ugu yeernaa haddii madaxweyne ku-xigeenkii ay dumar noqotay ninkeeda maxaa loogu yeeraa an waxaane xaajiga xaajiyadda ha loogu yeero xaajiga xaajiyadda ha loogu yeeraan ninka la si saaxiibka hadda halkan ila fadhiya wuxuu yiri magac kaloo asna ugu yeero basra jamaal waxay tiri dabadhoon ha loogu yeero marka bal loo magac bixiyo ila waa arrin inay sugaysa moogtii odagaas taytalkee ugu yeernaa sanyare yalla fasarruug waa taytalkee ugu yeernaa ma ninka labaad waxaan naanaa deegaanka ila marwada taytalka hadda fadhiyo waa marwada labaad ee deegaanka moog asaga marka waxaan naanaa ninka labaad ee deegaanka كل دولة عبد محمد عمر iyo xukuumadda xilli aabay madax bixinta ugu dheereeyaan anagu fariinta waa gaarsiinay bal waxaad noo soo sheegtaan magaca aan ugu yeerno madaxweyne ku-xigeenka deegaanka gabadha ah ninkeeda ama xaajigeeda magacee ugu yeernaa waxaan u magac bixinaa magacee u bixinaa xaajiga xaajiyadda labaad baan dhahaynaa xaajiyadda labaad deegaanka ya xaajiga marwada labaad maya ayadoo way ka baxday marwada labaad gabar mudugmeeday marwada labaad taytalka waxaa qaadata xaaska madaxweyne ku-xigeenka baa qaadata hadda ayadii baa madaxweyne ku-xigeena ayadii baa madaxweyne marka ninkeeda maxaan ugu yeernaa ya xaajiga marwada labaad waxay ahaan lahayd ayadoo hadday madaxweyne ku-xigeen ahaan lahayd ninkeeda haddii madaxweyne ku-xigeen ahaan lahayd hadda ayadaa madaxweyne ku-xigeen marka yani xaajiga madaxweyne ku-xigeenada maxaan ugu yeernaa anigu waxaa idhi xaajiga xaajiyadda ha loogu yeero xaajiga xaajiyadda ha loogu yeero ya maxaad idinkuna oran lahaydeen xaajiga xaajiyadda cabdi maxamed cumar ba aad wuxuu ugu dheereeyaa magac bixinta iyo cayda moogtii dhibaato waa kale anaga moogta magac hadda waa heli lahdaa sida cabdi maxamed cumar oo dumarka u caydo cabdiyow waxaad noo soo sheegtaa fadlan in adeerka xaajiga xaajiyadda madaxweyne ku-xigeenada ku ah magaca aada ugu yeedhaan ama taytalka aada ugu yeedhaan marwada koowaad dalka waxaa cabdi maxamed cumar xaaskiisa cabdi maxamed cumar xaaskiisa ayaa waxaa la marwada koowaad ee dalka deegaanka marka hadda isku meel baa waxaa jooga marwada koowaad ee deegaanka iyo mustafan yare isku taytal bay joogaan maadaama dee
cabdi maxamed cumarna uu maaragtay madaxweyne yahay, sucaadna ay tahay madaxweyne ku-xigeen. waadhan sucaad baa loo intoo iga saxbayaanan badgelin. marka gabadhaa walaasheena sharafta mudan waa inaan xaajigeeda maanta magac u bixin. ma ninka labaad ee wuxuu noqonayaa dalka maadaama taytalku uu yahay marwada koowaad ay qaadatay gabadha madaxweynuhu qabo. asaga haddii ay madaxweyne ku-xigeenadu qabto, waad ogtahay si loo kala lacag badan yahay hadda lasu qabaayo. maxaa loo bixiyaa ninkaa? ninka magac noogu yeera. ninka magac waa in loo yeeraa. sanyare waa in caawa magac loo bixiyaa. magacaas anagu waa weynay maadaama dulmidiid aysan ahayn dad maaragtay aad cayda ugu dheereeya. magacaas waxaan ka sugeynaa cabdi maxamed cumar iyo xukuumaddiisa cil iyo xidhiidhnimo ku joog. sidoo kale waxaan ka sugeynaa afhayeenka baarlamaanka maxamed rashiid isaaq. walow dee laakiin sawir waa ka xoray maxamed rashiid isaaq isagu soomaaliga si fiican uma yaqaano, oo waa sababta keentay inta waxa weeye meel babliga lasoo istaajiyey in la yidhaahdo afhayeenkeenu ha qubaysto, afhayeenkeenu ha cuntaysto, afhayeenkeenu ha bariisaysto, afhayeenkeenu ha cambuulaysto. waa masale la yaab liya masiibe. afhayeenku miya mama qubaysta? waa maxay afhayeenkeenu ha qubaysto? ilaa iyo hadda waxaan ka sugayaa shacabka daawadayaashahay magaca aan ugu yeerayno madaxweyne ku-xigeenada xaajigeeda. ninka la yidhaaha afhayare ee istaafka u ah cabdi maxamed cumar ee qaba gabadha madaxweyne ku-xigeenada, marwada madaxweyne ku-xigeenada oo cabdi maxamed cumar, ninkaa maxaan ugu yeeraynaa? madaxweyne ku-xigeenta xaajigeeda. xasan waa kusoo dhaweynayaa wariye. caawa waxa weeyaan bal erebixin baan rabnaa inaan helno wariyaashan adaha ka mid ah. maxaan ugu yeernaa madaxweyne ku-xigeenada deegaanka ninkeeda? ninka qaba gabadha madaxweyne ku-xigeenka ka ah deegaanka soomaalida etoobiya, xaajiga qaba maxaa loogu yeerayaa? magacee loogu yeerayaa? maadaama haddii madaxweynaha dowlad deegaanka xaajiyadiisa loogu yeeray marwada koowaad ee deegaanka, haddii madaxweyne ku-xigeenka loogu yeeri lahaa xaajiyadiisa marwada labaad ee deegaanka. haatan arrinku waa isbedelayo. madaxweynihii deegaanku waa nin, marwadiisana waxaa loogu yeerayaa marwada koowaad ee deegaanka. war waa yahay haddii madaxweyne ku-xigeen taytalka madaxweyne ku-xigeenka ay qaadatay gabari, xaajigeeda maxaa loogu yeerayaa? waxaa loogu yeerayaa xaajiga xaajiyadda. waxaa loogu yeerayaa bal inta kale idinkaa idinka sugaya. maxaan ugu yeernaa? waxaan ugu yeeraynaa sida hadda ay soo qaday gabadh mudug, madaxweyne ku-xigeenka xaajigeeda. madaxweyne ku-xigeenada madaxweyne ku-xigeenka nin buu noqonaya. madaxweyne ku-xigeenka magaceeda madaxweyne ku-xigeenada xaajigeeda miyaan ugu yeernaa? maxaan ugu yeernaa? taasna waa haddaad nagu dhaajay af soomaaliga bal nala wadaag. yaa maanta magac u bixin karaa marwada madaxweyne ku-xigeenada xaajigeeda? doodu halkaa ayay maraysaa. waxaan kaloo soo dhaweynaynaa dhammaan qoladii taageeri jiray qowlaysatada, dulmidoonka, dilaayada, xabsi ujiidka, rag kuwaan iyagu xaajada maaragtay aan si loo xaliya aqoon, ee xukuumadda xil iyo xidhiidhnimo ku joog amase xigaalo. waxaanu weynay intaanu tirinay dhammaan taytaladii ugu sarreeyey deegaanka waxaan ahayn madaxweynaha xigaaladiisa iyo dad xidhiidla ah oo halkaa xil ka haya. sidaa daraaddeed caawa waxaanu u magac bixinaynaa madaxweyne ku-xigeenada ninkeeda. magacee ayaa loogu yeeri karaa? fadlan nala wadaag. haddaad magac u haysid madaxweyne ku-xigeenada xaajigeeda maxaan ugu yeernaa? mar haddii madaxweynaha deegaanka marwadiisa loogu yeeray marwada koowaad ee deegaanka, maxaanu ugu yeernaa madaxweyne ku-xigeenada oo ah qof dumara ninkeeda? taytalkee ayaanu siinaa? bal waxa weeyaan soomaaliyay wax badan ayaa waxaa la yidhi af soomaaligu
waa tiro badan yahay waana bad sida mawjadaha oo kale. haddaba bal mawjadaha soomaaliga aanu ka soo saarno magacaanu ugu yeerno madaxweyne ku-xigeenada ninkeeda. waxaa kaloo caawa la iska rabaa ku-xigeenka ninkeeda waxaa la rabaa erey isku aadan ayaan doonaynaa. madaxweynaha deegaanka xaaskiisa waxaa loogu yeeraa marwada koowaad ee deegaanka. sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka deegaanka haddii ay qof dumara noqotay xaajigeeda maxaa loogu yeeraya? yaa soomaaliga yaqaan bay saaka doonaysaa. af soomaali ayaa la iska rabaa, magac bixin ayaa la iska rabaa. waxaad ogtihiin dhammaan ereyada la isticmaalo ama erey bixinta la isticmaalo in ay maaragtay dad nala mida keeneen. sidaa daraaddeed caawa waxaa la iska rabaa magaca loogu yeerayo madaxweyne ku-xigeenada deegaanka maadaama ay qof dumara noqotay ninka qaba magacyo ayaan ugu yeernaa. mar haddii madaxweynaha xaaskiisa loogu yeero marwada koowaad ee deegaanka ama dalka, mar haddii madaxweyne ku-xigeenka xaaskiisa loogu yeeri lahaa marwada labaad ee deegaanka, maxaynu ugu yeernaa mar haddii madaxweyne ku-xigeenkii ay qof dumara noqotay xaajigeeda magacyo ugu yeernaa? waa masale la yaab leh. bal adigu adeeqsii haddii aad haysid. anigu ubaan ii sheegayaa magac bixinta ma hayo. maya haddee marwada saddexaad ma noqon karo. ninkii waa nin moogta, waa nin raga weeye, wixii uguma yeeri karno. waxaa la rabaa hal eray magac bixintu moogta waa inay hal eray noqotaa. caawa meeda caawa ma soo qabtaa hadda waa inaan ayada ka helnaa moogtahay. codsiga waa inaan ayada ka helnaa. haawo alimiya haawo ama isoo qabadhe ama bahalkan yaa adigu farta soo taagay si aan kuu soo qabto walaalo. waa masale la yaab leh. maxaynu ugu yeernaa madaxweyne ku-xigeenada xaajigeeda? caawa hal xiraalaha codka shacabka doollo inta ayuu ku saabsan yahay. soo dhawow xaawo cali, soo dhawow master sanyare ayaanu caawa magac u raadinaynaa. alo asalaamu calaykum. waalaykum asalaam marwa soo dhawow. alxiraalaha waxaa la yaaba tahay layska rabo. wallaahi waa sheekayga qoslisay wey meel cadlaan cid gaar iska qoslay. ya warniya waxaan ku idhi aduma magacaad mucaaradsan tahay ka odha mise dawladda? magaceen waxaad leedahay magaca loogu yeeri doonee macna ninka naagi ka hor martay baad diidan tahay mise maamulkaad ayaad gariibsan tahay? maxaad gariibsan tahay? maya aniga gabdhaha walaalahay waan rabaa inay xitaa dalka ka taliyaan waan rabaa, laakiin waxaan rabaa ninkooda ama caajigooda magacaan ugu yeeri lahayn. waddankan anigu joogo taas waa madaxweyne ku-xigeene. naag baa madaxweyne u oraday haddana weli ku taamaysa in laga shubtay oo macnaha madaxweynihii dalka inay tahay in badan aaminsanay. waa Clinton miya? ninkeedu maxay tahay markaa? ninkeedu muxuu yahay? ninkeeda hadda kaas asagoo hadda Clinton oo kale waxa weeyaan asaga madaxweyne soo maray moogta. marka laftigeeda waxay qaadanaysaaba magacii ninkeeda macnaha haye maalgareedoo kalena maxay ahayd naagta jarmalka haysatana maxaa dhahna ninkeeda maxaan dhahnaa? waa run gowdhe. waxaan rabnaa annaga maadaama dhaqankeena nagu cusub yahay Soomaali haddaan nahay oo weli aan lahayn magaranaysaa madaxweyne gabar dumar madaxweyne ama madaxweyne ku-xigeena aan lahayn. wax kasta oo yimaado ma ogta waa inaad magac bixin u leedahay ama aad magac u bixisaa. maya magaca iyo waxaad noo kala saartaa mabdaa meesha ku jira.
magacu horta waan ka xumahay macnaha qof dumara inaad macnaha heerka ay gaadhay aad u diidaan ما ديدني ولا حاشا لله حاشا لله haye وسود maya de in وينيا magacii قبل lagu ولا soo أصل qabto ninkii وشعر waa هاي nin isagaa qaba waa marwadiisii de isaguna magaciisiibuu هي leeyahay taytalkiisiibuu wataa inkastuu isbedowla deegaanka ku dhex jiro la sheegayey oo maxaanaha shaad هي loo gelinayay oo la ii sheegayay inuu isagu maamulo meesha ayaduna marwadii loo yeedhinayay tahay waad fahantay maaha أي ما هذا meesha مقعي isagaa ولا maamula مقعي ولا laakiin anu meesha dhan ba waxaan u arkaa ma taqaanaa magacii baa lasoo sheegay مقعي ولا magacii baa توصل lasoo تيجي مدحوين بحجينة maya maya waxa weeyaan waxaasi waa walka horeba inuu ahaa waan ogeyn sayga madaxweyne ku-xigeenku magac ma ahe sayga madaxweyne ku-xigeen saygeedii iyo ninkeedii iyo kolka horeba waynu ogeyn waxaas magac bixin maaha aduu magac ma haysaa magac bixin ma haysaa maya waxa weeyaan horta maraykan baba iska dhiibtay waa tii lalaa miyay ku noqotay ya maraykan baba iska dhiibtay waa tii lalaa miyay ku noqotay sootii ciyaalkii hooyo la qafaashay hooyadii ciyaalkii baa laaftuuba markaasay noqotay hooyada ciyaalka maogtahay gabadhaas waa gabar aad sharaf loo maaragtay marwaay maasha allah marka waxay samayn jirtay way aragtay meeshan wanaag ka soo socon may noqotay soo joogtaa waa noqotay waa loo yeeray ciyaalka inta laga afduubtay hooyada waxa leeyahay ilaa degdeg kusoo gashaa deegaanka hadii kale okay waxba way saxaas way iska degi doontaa way iska dhammaan doontaa insha allah ilaahay baa xaqana fahansiin doona laakiin dee halkaa haddaad idigu dowlad degaan taqaanaan dowladda uma naqaanee waxaan u naqaanaa qoyska meesha maxaa ahayd aftuubka ku haystee ala sacuud ree ala sacuudna way ka daran yihiin anu qoyska candha wadaagta waxaan idhaha ma garanaya maya waxa waa asturaynaa moogtahay xogaa waa astur candha wadaag moogtahay sidooduna waxaan noqonaa moogtahay kuwa maaragtay gabdhaha geedkooda wax ka sheega may reerku waa ree candha wadaag xukuumadda xil iyo xidhiidhnimo ku joog baa leedahay xil iyo xidhiidhnimo ku joog may waxa weeye qoyska candha wadaagta macnaha dee kolley hadda dee meeshii ay garabka ku haysteen ay ku tiirsanaayeen ay ku deganaayeen iyadiiba ma kala tagtayba laakiin weli dad baa u haysta nolosha inuu nool yahay horta walaahi waxay ugu dara mataqaanaa adduunka ma ogtahay ama dhaqanka soomaalidu siduu ahaa xididku way kala fogaan jireen oo maaragtay waxaa la yidhi adduun waxaa loo yaabaa baa la oran jiray mataqaanaa markii xididkuna u dhaqma sidii cigaaladii cigaaladuna u dhaqanta sidii xididkii wallahi waa dhibkeeda leedahay waa dhaqanada inagu cusbeen hadda aragnay bal adigu waxaad ka warantaa ninkan khadar dheere ee seedigii markasta ku lamaan seediga dhabada wadada looga leexan jiray aniga haata markii horta khadar dheere dameer dibiradiisa u la ciyaaro weeyaane kaasi cidna ma matale calooshiisu matalaay walaashay ninka qaba markuu igu hor yimaado waa inaa waddada uga weecdo haddaan iska maaragtay aan meel aan ku leexdaan aqoon waa sii horgalaa ka sii jeesto maan sii horgalaa kasii hor dhaqaaqo xagga dambe kaaga yimaado aad iyo aad haa wallaahi khadar dheere isaga iska daa ka waran ninka ku lamaan ee ag taagan markasta anaa kuu sheeg waxa ku lamaan ma inta tolkiya mise inta xididkiya iyo candha wadaagtu keentay inta tolkiya dee raggi fiicnaayo isaga wehelkiya garabka u ka dhiganaya buu keentay laakiin inta candha wadaagtu uu keentay waa intii doqomada ahaa een waxba diidi karayn een waxan uu nagu xun yahay odhanayn een damiirba lahayn ee dantiisa u ka fushanayay hadda nin damiirli maba yeelaya seedigaa soo hor fadhiiso oo hadduu wax qarrabaya la qarrib hadduu maaragtay qashin qoosanaya la qoosho nin damiirlihi ma qaadanayo oy dee sababtu tahay imka khadarkan oo kale maalintiina cagtir la dilaya raggii loo adeegsaday buu ka mid ahaa in adeerkii loo adeegsaday marka nin caqlile ma yeeleen ma yeeleen nin caqli marka meeshan kama jiro system kama jiro dawladi kama jirto ninka dawlad degaan kalena waan la yaabaa dadka qaarkii dawlad degaan ma jiro koox tigreea meesha maamulaysay dadkan ayagaa keensaday dee tigreena waa iska tegey kuwana waa tolkeena iyagaa xoreynayna insha allah allaha soo hadeeyaan leeya kii godob galayna de kolley aakhari adduunka mid laga jaraba waa laga jari insha allah magacii la hadda waa la isku raacinaya sayga madaxweyne ku-xigeenada maya say madaxweyne meesha ma yaalle ninku meesha isaga madaxweyne ku-xigeenka gabadhuna waa kolley de hadday madaxweyne tahay waxyaalaha qaarkeedba laguma sameeya waxaan arkayno tv-ga ka daawanaynay maalin xafiiska dhexdiisa uu ku bahdilay ku caayaya inay leey ayaa la sheegay oo la daawanayay marka taasi waxba ma ahan waa wuxuu yeedhiyo unbay kabaa ishi tidhaa ishidii qolada maaragtay horta walaahi horta ninkaan dhibaatada taagan dadka horta ninkan ma aqaan ma marka horuu soo baxjiyaa inta meesha keenin hadda bal waxaad ka warantaa
afhayeenkii baarlamaanka ma arka adigu qaabka loola dhaqmo wallaahi afhayeen baarlamaan inuu jiraa baan aqrisanan anigu maya dee ninkan ku magacaaban asagoo lagu haya maarta ha cuntaysto ha cambuulaysto ha qubaysto odaga ma qubaystaa talow ya waa yaabay oo xilkii bay ka qaadeen markay saa ku leeyihiin anu sheekada ma dhageysanin maya wuu hayaa xilkii wuu hayaa haye ma ha qabaysa maxay tahay markaa waxaan isiri wuu soo yashiraa isiri odaguna moogta soomaaliga ma yaqaanin dhibta taagan ma haytaa odagu soomaaliga ma yaqaano ma odayga xildhibaankii afhayeenkii odaga afhayeenka baarlamaanka soomaaliga aad uma yaqaan moog ma oran ba waa wuxuu ka soo jeedaa gobolka liibaan buu ka soo jeedaa ma garan wase jareerta iyo macnaha qolada maygu ku yarda maya waa garay odag waa garay marka soomaaliguusan aqoon laakiin afka soomaaliguusan de ha maygu ku yar darsaday oo ku yar dhex koray oo afkaas abdhibaya marka ha qubaystay leeyihin moogta hoos gacan taagaya ha qubaysto asaga waa lala asaga waa moogtahay waa mid horta inta meesha joogtaaba wax qabaystaa inuu ku yar yaanu qabaaba waayo nin darooga isticmaalayo garaabo dhex fadhiyo oo khamridii dhinac ku haysto buurigii dhinac ku haysto de isagaaba shiiraya qabays maxaa usoo arkay iyagaa wadawraya ma waxaad leedahay qorshihii marqaankii qaadiradu lumisaa weligeed qallibantahay waaba iska qalliban yihiin gebigooda dhan baa saasaba wallaahi waxaa la iiga sheekeeyey mid la shaqeeya iiga sheekeeyo wuxuu igu dhahay hortaada xageed joogta hadda aniga kenya joogaa okay mid baa wuxuu iiga sheekeeyey iyaga dhexdooda ka shaqeeya baa maalin khadka sidoo kale aan soo wada galnay marka wuxuu iiga sheekeeyey meesha waa meel laysu qaylo buu yidhi cid seexataa ma jirto ninkii seexdaa subaxii waxaad arkii buu yidhi isagoo meel walba ka qataalanta buucudma soo toosi marka lama seexda si loo soo jeedana waa inay daroogadiiyo ku ag taalla jeedka waaweynku horta dhaqankaas dhaqan cusub maaha oo waxa weeyaan waagi hore xitaa dowladii hore waxaa loo oran jiray ninka seexdaa sicidiiba dhalaa oo maarata hebel xala loo qayira wallahi meesha dhaqanka ka jiraaba saa buu yidhi wallahi ninkii seexda ragga shaqaalaha ragga dawladda ku shaqeeya ragga xafiisyada ka shaqeeya ninkii caawa seexda subaxii xafiiskiisa quful kale ku jiro u iman buu yidhi oo miftaaxii baa laga bedelay su-aal kale aan weydiiye mataqaanaa waxaa la yidhahdaa qaaran xisbi qaaran xisbi oo dadka laga qaado ha qaaran xisbi waa waxa gibirka waxay socialista odhan jirtay xabashadii hore dhargida gibirka ay dhahaan ee macnaa hawliya hadda dadka qaarna yidhaahdo ما عالميا حتى الدنيا ده واحد قارن حسبي وكتيرة لكن قارن حسبية اللي يقول لي واحد أنا قارن حسبي واحد اللي يقول لي هاي أنت اسمه حسبية أنت اسمه حسبية اللي يقول لي شعبنا لقوا ماله يعني حسب جاره وكسر كذا لقوا ماله أنت اسمه حسبي قال يقول لي قارن وذاك أنت اسمه حسبي واحد حسبي لسه هو كلام حياة متقانا ابن حسبي ابن السجيال يتاجريان حسبي وكلام حياة مب وارون قارن كحسبي مركب واحد يقول لي xubnaha xisbiga lagu leeyahay xubnaha xisbiguna waa gudoomiyaha xisbiga gudoomiye ku-xigeenka iyo golaha maaragtay golaha sare xisbiga dadkaas weeyaan haatan waxaanu aragnaa dameerka dhaankaa lagu leeyahay rida soo dhaadhacdaa lagu leeyahay la waraabinayo dameerka dhaankaa lagu leeyahay masiga dhaankaa la xidhanaya ilaa laga qaado ilaa laga qaada qaaran xisbi ha dhaankii ma fulayay ka dhigan tahay يعني waxay ka dhigan tahay waa nidaamyada cusub oo dadka ku dhaco way ka dhigan fiir waa nidaamyada cusub ee dadka ku dhaco qaran xisbi waxa kale oo la yaabo dad baa inta la soo shiriyo oo hool la isugu keena waxa la leeyahay waxaanu idin siin doonaa oo maanta aan idin teeqeena faa'iidadii aan ka helnay qaadka faa'iidadii aan ka helnay jaadka aye balaaya isla markaana waxa la hayaa oromadu waa cadowgeena la socdo oromadu waa cadowgeena la socdo ay jaadkan ayaa keenay oromo bal fiir marka koowaad dadkii waxaa loo xayeysiiyey qaadkii oo waxaa la faa'iida laga helo faa'iida dib leedahay ku soo celiyay aye mar labaad deegaanka oromiya ee uu leeyahay waa cadowgeen oo dadkii ku kicinaya waa cadowgeen asaga habeen kasta wuxuu siinayaa bilyan bir ugu deeqaya marka labadaasi say isu qaadan karaan dadkii waan wax barayaa iyo dawladda wax xayeysiinaya iyo oromo waa cadowgeen iyo malaayiin bir baa siinaya habeenkii bal labadaa isu qaadan hay malaayiinta bir sababta lagu siiyo hadda taan weli ma fahmin lacagay dhaceen lacagay dhexda ka qabteen isagoo tigree loo sii wada waan maqlay laakiin oromo lacag siiya ma maqal hadda lacagtaas may jirtaa alla dee ma taqaanaa qaabka loo siinayo oromada lacagta ay
jaadka xagee laga keenaa walaalo soo oromiya ma ama jaad baa loo dhaqaa ها اوكي وفهمي معناها كنت مليون haa برمية ولا كبدن تاي معنى انت سو ديار haa ما انت سو بابور جهada maalin walba ka soo galaya baa lacagtii maalin wadanka oo kasta dhan deegaankeena kasoo gala oo loo yaa ka celiyaa oromo la baxaysa siiyaa oo de haa lacagta habeen iyo maalin lagu qaylayo cuntadii habeen iyo maalin waxa laga dhigay jaad wixii lacagta lagu dhiga cunayana haa waa deyrama la haa noqonaysa haa oromana waa haa cadawgeena la leeyahay ado okay oromada kolley waa waa labaan cadowgeena isku leeyahay daboolayn kolley waa labaan is haa daboolaynin wadankeena khamri hadda laguma waddankaad sameeyo joogtid hadda eeg waddankaad eeg joogtid fiir waddankaad joogtid waddankaad ah, joogtid mm, khamrida iyo mm, sigaarka mm, baa caadi official la ogolaya wax daroogaa ay ayagana ha la ogolaadee waxaan mm, umaya waad aragtay wax la taarif tax baa la saaraa canshuur extra baa la saaraa ay hadda waa eeg gaalada wax fiiri kaa yeelaysa eeg Mhm, fiiri waddankayaan anigu aan mhm, hadda joogo mhm. sigaarka waa la gadaa dukaamo gaaraa gada khamridana dukaamo gaara aad gado iyo lagu ogeeyo dukaamadoo dhan ma wada yaallo dad aad iyo cayiman aad baa laga gadaa qofku 18 hadduu ka yar yahay lagama iibiyo khamri iyo sigaar toona da'diisu aad iyo 18 hadday ka yar tahay lagama iibiyo aad iyo wixii ka weyna aad iyo aydhigooda laga qoraa marka laga gadayo aydhigooda laga qoraa aad iyo cuntada la cunaya iyo waxaan macnaha qiimaha la gadanayana kubaayadda shaaha ee la Mhm, cabayo taxi baa saaran kubaayadda shaaha ee la aad cabayo taxi baa aad iyo saaran aad waayo laguma may sheegayo maba ogidba qiimada uu may ku qoran macal kan taxigiisu way extraaba meesha ku saaranba jirtaa ha way may ku tan jirtaa extraaba adigu saaranba tan ha extraaba way saaranba khamrida iyo sigaarka canshuur extraaba saaran wax godheeri baa saaran waxa kasta oo la gadanayo canshuurta way la socotaa canshuurtana haa laguma waa odhanayo waxaa baa lagu waa canshuuraya VAT keene waa waxay la VAT socotaaba wey biceysayba la socotaa ma fahantay Mhm, mhm, marka waddanka sharci haddii loo sameeyo oo canshuurta la qaado horta ma ka horeysaa mhm. dadki inuu nabadgelyo yahay oo dad ganacsan karo oo ikhtiyaar la oo xornimo ku baashaali kara inuu yahay baa ka horeysa taxiga oo horta haba lagu yeesho competition market meesha ka jiro competition market meesha horta yaaba la ka horta jiro ka horeysa dadkan maxay ahayde Mhm. irtiga dhaankaa laleeyahay ma Mon- fulinaysid ilaa aad lacag ka bixiso monopoly horta market waxaas canshuur lama yidhaahdo waxaas canshuur ma aha Mhm, hadda waxaan mhm. maqlayay baac mushtarkii oo dhan shakhsiyaad gaaraa loo xidhay nimka wiil xalay ka cabanayaan arkay gobolka doollo oo kale oo le hal naaga oo macnaha nin reerkoodii ka dhintay oo reer jigjigaabuu u xidhay baac mushtarkii gobolka doollo tegaya oo dhan waa aniga kula hadlaya wey horta maada hore maxaa ka sheekeynaya waa ku dhegeysanaya ninkii cala ka sheekeynaya anigu ahaa wallaahi waa qoslay markii waxa weeyaan waddanka de meesha markaan waa candhawadaa ku leeyahay meeshu meel raas leeyahay weeyaan iminka magaalada la leeyahay marsin aniguna tiyo balli aan garanayaa balli oo gugi markuu roobku doo kor degno xooluhu ka cabaan oonu dharka kasoo dhaansanaan garanayaa oo waa dhowahay intaa soomaaliya kasoo baxnay ahay waa halka annaga ay noo joogto degmada daratoole wallaahi waxaan ku idhi tiyo berrina oo laba berkadood ka waraabsano balli bay ahayd waa dhow bay ahayd waa sii fogba may ahayn 93 bay ahayd iyo 92 ayadoo laba berkadood baa malaha ka hor laga qoday beri hore berigii dagaalkii dhaba rooblaa la jijiyey isaaqi jijibiyeen baa labadii berkadoodna way ka qaxeen oo maxaa reer warfaabay dabada ka mareen dhulku waa cidlo cidima degana abraahiin iyo reerka gaadsan ee reer isaaqa dhinaca ku haya looma dhaxaynin reer gaadsan iyo abraahiin iyo waxay isdhex deganaa maxay ahaydee reer isaaqan baa dhinaca isku hayay dhulkan anu degaankaygii waayo waan ku dhashay ma garatay marka walaal dhulka soo berrinaan garanayaa imikana waxaa la yidhi biyihii laga qaaday birqod baa dhuuntii la geliyay oo la geeyay marsin kasaniya marsin magaalooyin ka sokeeya maa la geliyey markaasaa mee marsin iyo gaashaamaa loo sii wadaa markaasan biyaha gaashaama loo sii wado wayla lagu xur baa ka sokaysay maxaa loo geli waayey oo dig baa ka sokaysay ma la geliyey oo farmadow ma la geliyey dhulkii oomanaha ahaayeen garanaya ma la geliyey kuwa hadhow baa loo soo noqon doonaayo baa lagu leeyahay maya baybku meeshu maraya mataqaanaa baybku geedaha dushoodu maraa wallahi waan u malaynay ila walaaga haddii dhulka la geliyey tuulooyinka lamarka goobtee lama awoodi in hal beeb loo leexiyo maya dhuunta waa la geliyaa la yidhi way martay meesha wuu sameeyey arrinta wuu isku dayey waxaa la yidhi weyla lagu xidh baa habeen jabsaday baa la yidhi meesha la yidhaha weyla lagu xidh iyo waxaa la kala dhex mariyey meel maraaga la dhaho maraaga iyo weyla lagu xidhna haddaad adoo weyla lagu xidh jooga hebelaa wadaad tiraa waa lagaa maqli maraaga ma fahantay laba reer ba oo laba reer saaq wadaa baa wada degan marka way tuuladay kala magaaladu way isku darmatay hadda berkadaa u dhexeeyey berkada yar bay kolkii hore ahaayeen kolkii hore daanu gogaa hadda laakiin laba tuulay kala noqotaa la yidhi kala dhexdoodaa la mariyey
نص طريق قليل كلو مريه هرو رسالة دح مريه نص طريق فايق لقى مريه نص طريق لو ما ويعين لو إلى الوحد لو ما ويعين مراقي لو ما ويعين ديجو كيس لو ما ويعين ديتا لو ما ويعين فرمدو لو ما ويعين مركز سواح على يده وإلى الوحد مع مغلي على وبرجع ويدا قار صار كي بويدا بيا ودا مني مركز سواح على هبين ما تشبصدين أنت قاعد شوف ترم بهبين كي كعب تالي أرورتي بالله بيو حالي لقى درجي مركز صار ريري ودا شال قوري جبي أريد وحيد كنا ودا بالله حالي وبيها سوي لعب لو ما ودي محدد الله حريا ما يدري waxa loo wada reer marsina de maxaa way wax u jiraan حاجة biyaha reer marsin baa iska lahaa دي حاجة تابته biyo xaajiga taabtee reeri hadda sidaa iyiin way xidhxidhan yihiin قالوا حاجة خلاص يعني كحمال النبي على تاجي مياه waxaa la yidhi reer dhagax buur baa waxaa la yidhi yuu tagayo markaasi waxaa la yidhi wadadii meeshii balaas bixii loodhan jiray muxuu ahaa magacii loo sheegi jiray wadooyinka yaa waxaa la yidhi muxuu ahaa wixii magaciisii soo xasuuso maba kara waxaasi balaag mastarkii balaagi مستر بلانكي مستر بلانكي baa la yidhi bay yidhi reer dhagax buur buu ku yidhi baa la ka warrama sidoo u socdaa master balanko markaasuu yidhi baa la kuwo ilka casayideen baa la madaxweyne marsin balankii marsin waa kaysiiskii si fiican buu socdaa marsin waa kaysiiskii si fiican buu socdaa bay dhaheen baa la reer dhagax buurka ma aragto burkaas waa nooc weeye waa nooc waxaa la yidhi maalin kalena waxay sheegayeen waxaa la yidhi 2014 de waqtiga ugu darayda reer dhagax burjeelka ku wada jira bay ahayd ma ogtahay dhibaatada u badan soo gaadhay markii dambe wax sii daadaaye ayay ahayd 2014 reer burjeelka u badan galeen markaasi waxaa la yidhi dhagax bur yimid buu yidhi baa reer saaqo waa shiraynaaye سي ديار قروبة بيقول لي شرنا شروينا عالمي وقوة هذا الله إلهي بالشدة قيبه هذا كل الدول لقوة هذا الله سمعنا يا وقتي كمان كنا عارضين من يا سي دياري يقول لي الشركة مركز سي واحد لي شركة بلا قبن قابيه هول وين بلا الديارية لابتر بلا دقي مركز سي دهين بلا يدي مركو يمدي مالتي وقتي صار قال لي واحد تضبان الله دري oo de iska yar wada dar xumaysan oo sidacsan baa loo diray markaas la yidhi dadkii shirki ma la yimaado markaas la madaxweyne dadkii shirka kula shiri lahaa la kula hadli lahaa hadda inna way baabado adaa dilay wal ciidankaaga dilay intii kale adiga jeelogaadeen geystay intii dhibatay way tagto ma soo noqonaysa inta jeelogaadeen ku jirtaa kula shirtaa war soo daabaa lagu yidhi يا أرجع لو ما حاجة صار لو والله ما لو يرجع كل يربا وين مكان خد كنا سوق لي كنا وين جوجان والله لو اللي يقول نقدر نسيته يدك بدناه لبده كل يدور كبقولة نسيته باي بس ولي بسيدين ولي وحالي ما سيدين لكن كل نسيته يا بين بصاحة يا لبده كل يافر يتمن كي ويش كذا أرض فين واحد كذا تقانا ما له دوت بحش شيء ما له دوت بحش شيء waxaa la yidhi markuu imka Nairobi ka soo noqday ayaa wuxuu sameeyay la yidhi wuxuu isugu yeeray maamulkiisa canda wadaag markuu isugu yeeray buu yidhi baa la ruux walba reer buu ka yimaado reer walba ruux matala ha yimaado markaasuu yidhi baa la yidhi shir buu qabtay markaasuu khudbadeeyo markaasuu dhahay baa la yidhi nimayo waxa maanta wax iga qora taariikhiga reeb buu yidhi baa la yidhi haye maxaan kaa qornaa baa la yidhi waxaan idiga qortaan oo iga reebtaan waa iga talo waa iga dardaaran anigu xusbigan waa la isbedelayaa jagadan waa ninba maalin anigu waan ka tegayaa haddaan ka taga nimankaa reer dhagax buriyana jagada kilalka fadhiisana maxaad ka wadaa baa la yidhi maxay kaaga badan tahay wuxuu dhahay baa la yidhi nimankaa maaragtaa waan laayay oo waan maxay ahayday xasuuqay oo wax walba cirsigoodii aan xalaalaystay marnabana inay dabcaan waan ka waayay buu yidhi waan laayay jeelogaadeen baan inta u badan ay ku soo gashay iyaga noqdeen gabdhahoodii baan kufsigoodii xalaaleeyay maxay ahaydee dhibaato basta kastaan u geystay haddana waan ka waayay buu yidhi baa nimankaas innaba inay dabcaan ay cabsadaan kabacdi waxaan isku dayay buu yidhi inaan sameeyo raaligelin tuulooyinkii oo dhan baan u dhisay wax walbaan u qabtay biyaan u wada geliyey mashruuciyaan u sameeyey aad ba u horumari baan isidhi taankiyu marnaba waan ka waayay buu yidhi nimankaasi ma naxaane yaa hadday idin qabsadaan inay aara goostaan bay u badan tahay nimanka meesha laga ilaaliyo yidhi baa layidhi aan wadaagaysa u badbaadaan ana nimankaas ay ku soo bixi nimankaas hadday meesha qabtaan ma badbaadayna macna dhibaatadii aan geysanay waa laynaga jariya
marka waxaan horta odhan ninkaan lahaa halkan uga sheegaya aniguna nimanku waa talkaaya in kaaga cadowsan oo ku raadsanaysaa jirtee waxaad samaysay saacadoodii bay ku baxeen bal inta dambe un isdaba qabaan odhan lahaa oo dadka dhibaatada ka daa oo xorriya siyaasi waxaad leedahay waxaad fashay wain faatakum waxaad fashayba fashaya dib isu kala qabo oo bal hadda kadib yaa qiil raadi baan odhan lahaa sheekada horta ma haysaa waxaad fashay wain faatakum de weligeed baan odhan jirnay war waxaad fashayba fashaya bal dib isu qabee gabar yaraa waxaa dhacday dugsi bay dhigay jirtay moogta waan maqlay taariikhdaani hooyadeedna islaan iska garoobay ahayd moogta haye macallinkii waxay aragtay goor dambe gurigii joogo maamadii maaragtay shukaansanahaya haye adigu il xun bay ku eegtayoo subaxdii baa iskuulkii leeyihi haye macallinkii gabadhii waxba casar buu u yeerinayay haye sheekadii ay marka sheegtay moogta haye macallinkii markay aayaddii weydiisay wuxuu yeenta kusoo celiyey wuxuu ye sheeg badanay shaydaan ilmihiisa khayraad min aswaajikum iyo moogta marka hore ma garanta bardabara uu ye waxaad fashaye wain faatakum waxaad fashaye wain faatakum wallahi gabadhaas kan hadda waa sidii oo kale wuxuu falay waa falay aad iyo aad khayr baan kuu rajeynaya insha allah halkaas insha allah ka wada socon haddii ilaahay yaxaawo geesiyad baa taan umalaynaya aan reer dhagax buur baan ilkahaas reer dhagax buur baan ma garan hay laakiin maqaraabada waad u baqaysaa maaniga mayo maalin kastaan qaraabada inku ka raba god bay ku wada jiraan hadda waxaa bilaabatay hadda sheekada bilaabatay maqasho maya hadda aniga oo kale waxa weeyaan cid ii dhow horta oo yani jifa mooyaane maaragtay aabbaha iyo waalidkii dadkaygi meesha ma joogaan dadkii noocaasa aniga ila mid ah deegaanka anaga weli tacadiga ama soo gaarin matogo doola bari weli maanaa gaarin maarata in la yidhaahdo wiilkiinaan soo caaya dadka caaya weli maanaa gaarin halkaa nalama gaarsi ma xeer baa nooga yaalla moogta in odag sodog soo caaya gabar sodog u yahay iyo nin yidhaahda maaragtay hebel ilmihiisa anaa qalay iyo anaga uu noo xidi karaa uuna layn karaa laakiin caaya nama odhan karo wax kasta u sameeya caaya nama odhan karo caaya ma idinka suurtagala weyne xaaraan bay ka tahay taa yadaa doondoon annagu reerka ugu badan ee rogay baanu nahay reerka ugu badan ee jeelogada ku jiraan nahay wax kasta u sameeya ruuxaaga dibadda jira caaya ma dhihi karo laakiin wuuna layn karaa hana laayo intii malageedka hadda wuxuu bilaabay baa liyi qofku in adeerki waayo ama aabihii waayo ama walaalki waayo yuu xidid la ahaa buu dhahayaa bal yuu xidid la ahaa waa gabarkaa buuxaa oday baa lasoo qabanayaa bal maxaa layga rabaa wiil waa gabarkaa guursadaa facebooka naga soo caayay oo maandhow facebook maxaa la dhahaa wallahi facebookan waa idaacadda aan cidina xakamayn karin cidina hor istaagi karin haddii idaacadihii dadka dee inay dhexdhexaada noqdaan ay warka ka tabiyaan gaar loo yeeshay aan loo dhex ahayn dee nin walba telefoonkiisa dhex looma aha ma ogtahay maya gaalka horta gaalna uma ducayn karna sida ayagoo kale ma dhihi karna mala sanaawi alla maaratan xariirta hageeyo oo gaal uma ducayn karna ma garata horta laakiin bulshada horta waddanka u badatay gaalka facebooka iska lihi waa naga ducaysta uma ducayn karna bilanaarka uma ducayn karna wallaahi bilahi kaasi dadka wax badan buu baray bulshada waayo aqalkaygii baan iskaga jiraa telefoonkaygina waan iska haystaa caalamkina waa la hadlaysaa caalamkina meel kasta oo la joogo dee waxba oo isku seegani ma jiro jawaari oo ayaa maanta daawanaya oo dhegaysanaya soomaaliya waxa ka dhacayaan daawanaya jigjiga waxa ka dhacayaan daawanaya inkastoo dee laga xidho etoobiya hadda aan ka jirin wax waray ka jirin internetada laga xidhoon telefoon loo amayo wax kale la iska maqlay deegaankeena waxa looga xidhaa la yaabana qaad isaga qaar la shaqeeyo jooga xafiiskaa soo gala maalin walba oo anagu kuwa keliya soo gala dadkooda ma soo galaanba marka waxa weeyaan walaal
maxay ahayd kuwa laftigooda anu waan caayaa waxaan ku idhahdaa war ilaahay ka yaaba iska toobad keena waad riyoonaysaan halkaasa waxay leeyihin orama cadowgeena war orama cadowgaaga tigraaba cadowgaaga orama cadowgaaga mee waa garabkaaga oo hel ka dhigo maxaa qaadkeeda loo cunayo harmaayo loogu doonta weliba laga soo wareejiyaa maxay ahayd dirdhaba kor iyo ay shaca lasoo mariyaa oo nadarina lasoo marinayn والله هذا الكيبة وكسر عليه مالته ماشى محي هيدا دكتورك مالته فري مداوتها ولا هي ملاسة ما دمنين فكر كيسي ما دمنين وأكو شقينا وهذا ملاسة مالته لا مداوتها بيلا بقول الرجال قبل الدول اللي ما دمن والله وكلمته أنا يقص لي سأقول بكل عشرة ملاسة ما دمنين فكر كيسي ما دمنين وهذا ما الله يقول حارس ملا زناوي وانا يا مركان ولاي ملا سنه ولا نحرس ملا ولاي وحيد ما تقنا الله ونحرسها بقالي اي نغتي ابين الله ونحرسته مغلويك deegaan ka dhac waxa kamid ma taqaana in ayaga lagu qasbayo ama dadkii la leeyahay abdi ilay waxa ku taqaana aab hada horta antaas iga yaabisay iga qoslisay weeyaan waayo dadkan kolkii hore inaa salahay qofan aaba ku hayna aaba ku tiraadi دم دينيا وممنوع ذكني أن أبا دلي إسر بيليهين أبنق ميل بكسو جيدان نصب بيليهين نمان دلين أن أبا اللي يراه أن نصب كي وحولي ما يسامن واركانو أعوذ بالله والله واكنا حلم بالمال وتكون دون وحكور ورده إن الدين تموالا أقوم بكل موقتا يوم تستيادا قوليها أنك هذا بيعلا بارتو برقة جراه وحان أنا موقتا وحالي دين تحقا قلبيتك كتير دليا موقتا ونمر هاي أقطب لي لا نحيرنا وحنا هكذا اللي قصوا كسبان. هذا النهر هاي أقطب وكاي أب عبد مركان على كور. أنا ولا نديت. شركة راسان تاولي شركة راسان تاولي علماء دودي أب هايسه. أب هايسه. هذا علماء دي ديت تمكن أنا كتير سنجبنا أيقون نسوق كارسي أب وكاي. أنا ولا ده. ورمحار هاي أقطب كل عيوان كور هذا يجا ما أعرف دين نسوق كارسي دين تنو حيل فرد أنا قفا أبها هاي أب ولا قول إيه. مثل كلام كل شيء ولا الكلام هذا ورت مررد المديد باتاي أنا ورت المديد بنا رير كان دمبي رير المديد باتاي أوكي قدال صباحا دوا صار دلشدا أنا قلنا دوا دلشدا أنا وقالنا هل باردي ويدي هذا رير المديدو هذا نسوا صار عنا هذا باقي يدي ويدي هل بنهرتك ويدينا يا مدبا ما أنت واحد كم قليل ما تقانا labada kun iyo 18 labada kun iyo 17 dadka dacadtiga lagu hayay dhibaatada ku dhacday waran maadareeyal ma labada sano kaliya la idin dhibaateeyay mise labada kun iyo 15 14 13 12 dadkii idin iyagu wax dhibaateynayay baatiino hadda idinka idinku soo rogmatay taa ii kala sheega warda ku warrabo warda dilbidu calay taqabiil taqaadid ma uma aqaano وما قال عدك ما ينعر شعاعية ما رد المديد خلك الرد لا نسقلا ولا كذا قالوا ومعنا إسبر صديق أنا وقعنا قبيلكم أترمي هذه برضو عويا برضو أبغى شيء دينتنا الإسلام كسماري رسالة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم قف مر بيسوق على سوما هو حويان يعني خالد بن الوليد رجل أبو خطر سنة مقولة أصحابه مر بيدبت تبيني الموقع دين الإسلام كان وارن مركين هذا هدي حد حتى رسالة النسوق قاري أم عمو قاعد النسوق قاري وهذا دول نشر على الرجال حي أنا نوريا من التود ويا ما ورد سود وين أنا مرنا بيد مفقين إنه لكن واحد يدنا هاي غيري ولا حدا هذا نبكي لا شيء أنا يا كيا بنا هذا ما ورد بيده كل شيء يا waxaa jirta hadda ka hor qisad dhacday baa jirtay moogta wardheer anoo ku xiran walaalayaa warreer anoo ku xiran oo nin aad waadeernahay oo guuleed cali gare uu soo xiray baa waxaa dhacday nin la oran jiray maxamed galeer oo reer wardheera baa xabsiga igula xirnaa horta aan kuu soo bilaabay aniga markii la xiray dadka yagii gudo iyo dibadba waa la qiiriyey waa nin baa la xiray oo yani arrin waxay noqotay moogta qolada bariga maartay bariga dowladda degta Soomaaliya
qof in la xiraa waxay nagu tahay wax balaaya ka dhacday waa dhimanayna haddii qof baa la xiray waxaan aaminsanaa qofka inuu dhintay هذا dalkii Soomaaliya oo sida dadka loo deesi xidhin baa daris la tihiin oo dagumaadku haa ku yahay xoogay nafis baa haysanaa war maxamed gaale eri laba qol isu dhowaan joognay subaxii markii la sii daayay buu firaaskiisi oo cusub iyo busto cusub iyo gogosii oo dhan buu meeshii uga tegay hay wareedha maxaa dhacay baan ku iriyo gogoshaada uga tagtay xaaladdu waa sidee hay markaas inaadee eega buu igu soo celinay maxaan ka haysiyaal barnaamij soo noqone arrinkii fatixisi ugu noqda horta aad baa ula yaabay goobta waa ku wareeray 7 beri kama soo wareegin markii ninkii la ii keenay lagugu soo celiyey xabsiga laygu keenay walaal waa wax jira horta laakiin anigu waxaan la yaabay waxa iga degi weyday kelmadii uu yiri Cabdullaahi Itoobiya ayaa wali ku celceshada hadalkii Cabdullaahi Itoobiya reer Mudiin hadalkay hadda leeyihiin baan sugeeyo waxaan idhi hadalkii Cabdullaahi Itoobiya yiri baa iyaga ahaa wixii dadka dhibaya dhibaateen anigu waxaan u haystaaba dadka iyagii la laayay 2010kii ilaa 2017 intii u dhaxaysay dadka iyagii la laayay anagu reer Mudiin baaba ka jarayna hadhow oo Cabdullaahi Itoobiya yiri waay oo adee waxay tahay Cabdullaahi Itoobiya kelmadu yiri ma haysid wuxuu yiri badal nayu booliska buu yiri waxa loo sameeyay ogaadeen gabdhaha ogaadeen bay fuuli karaan xoolaha ogaadeen bay dhici karaan ragga ogaadeen bay bilaash ku dili karaan hatta buu yiri qarbaxay waxba kuma samayn karaan harta sheekha waxba kama samayn karaan cid kale waxba ma yeeli karaan ciday wax yeeli karaan kaliya waa ogaadeen YouTube ku jirta dib ugu noqo horta aniga fiiri aniga hadda markay noqoto Cabdullaahi Itoobiya reerku yahay iyo reerka uu magacaabay Soomaaliya horta waa laba reer oo ii siman waa run oo maanta u kala helin mayo waa sax waa run waa laba qoys dhalan reer ogaadeen ku sheegay baa dhalay isaga waa wiil dhalayo aad iyo aad wana garanayna Cabdullaahi Itoobiya aad iyo aad laakiin kolkuu saaleeyahay iyo kolkii dambe ay hadda leeyihiin waana la dhibayo waana la xidhxidho waana la xasuuqay daan waxa badan arkaa kolkii hore wixii xasuuqi jiray in reer Mudiin yihiin mayo horta mid aan isla qaadano walaalay haddaan markii hore ahayn haddaan markii dambe ahaynba horta maanta cadowga idinku aad la dagaalamayseen qayb ka mid ah qorada annagu la dagaalamayna sax haddaaya qayb ka mid ah la dagaalamine intaad caalanka dabarka soo dhigataan iska tuurtaan cadawgeenu waa Itoobiya aan wada layno Itoobiya markay meesha ka baxdana daacadiina uu iska tagiyo qoladan aad ku masaytantiin laakiin idinka waxaan idin aragnaa rag xornimo doona ma tidin rag dulmi doona oo kursadayda ayaa tihiin kursiga markaad qaadan aad weydeena idinka dulmiga xagaa la sii galo doontay aan saasan warka ma insha Allah way shireen hada waxba isla waay meelo horta cadawga ma nooga gaagaamana baqala ka soo doolay iska saaro nimanka baqala ka soo doolay ma aragtay aan isdhaafin kuwa wada soo socdaale maxaan ka digaynaa hada cabdiina kama dambaynayo isagaaba ku dhaartayba anu haday kuwaasi tagaan ma joogayo yiri oo boosiga ma banaana dalka ma fahamtay marka iska sugaysa ama guush way iska soo dhawdahay ma dheeraanayso isaga qudhiisa gumaysiga waxaan u dhiibay wuxuu u dhashay ma aha maxay leedahay xumi shakhsiyaad way jirtaa laakiin anu waxaan arkaa in loo dhiibo lagu adeeganayo oo ikhtiyaarkiisa waxba ku samayn karin oo loo yeedhiyo wax walba uu sameeyo marka isaga dulmanahe inaan dulmiga ka dulb qaadno aan ilaahayna u soo barina inaguna aan wada guntano ya isaga qudhiisa dulmanaha hada la socoya insha Allah bay dhamaanteen insha Allah adu ma dhamayacada tahay qolada dhamayacada la dhaho ma dhamayacada la oranaada meel cagdheer ku dhaaro ma iska dhaafo cagdheer de hortaaba la yiri adu imaad bixinine hadda dhamayacada tahay waan soo iman doonaa insha Allah reer dulmidiin iyo cidii kale dulmiga diidiyowba anuu galaadiya galaatide ha dulmidiid ba waxa degan maxay makaayil ba degan dhulba ma jeerteen ba degan warsageen maxay ahayd reerkan habar maxaa tumala urtula dhinac ka soo gasha dad badan ba degan oo reer daarood oo badan hawiya degan habar gidan ba degan ummad badan ba degan war anagu dhulka ma tagin beenta waa xaaraan ma dhaafin magaalada wardheer la yiraahdo ma garato way galaadi waxa degan idyahan mareexaan dulbahante
oo qayb ka soo gala meel maanta ma soo galo adigu bicdiyaha iyo barxaan baa dhulbahanta ma soo gashaa gala waxa soo galshaa habar samatalsni ahayd mise qoladii maxay ahayd qoladii goldogob iyo balanbal geldegi jirta iyadoo dhinac ka soo gasha leelkasi meel ka soo gala leelkas baa dhinac ka soo gala haa iyo mareexaanka iyo dhulbahanta iyo majeerteenka iyo habar gidirta intaaba waan ku maqlay ma habarkii dacdeer kaliya naga dirtay marka ilmaada rayaalow Mm. ilay keliya waxaan ma samaynaya tigraa baa samaynaya etoobiya waddankeena khayraadkiisa la isugu keendiraya inba maalin loo soo samanaya horta dhurwaa libaaxii saddexda dibi midba maalin cunay baynu nahay haddaynu maalinkii horeysa kii horeeye la maagay aynu garab isa siin lahayn waxaan ballamaha weysteene hadda shidaalkeena la leeyahay waxaa lagu sifaynayaa maxay ahayd magaaladii loodhan jiray jabuuti dameero joog baadish looga dhistay warshado lagu sifeeyo taaba lama hunguriyeysteene ilmaada reel gacmaha isqabsano halganka soo raaca meelan ka wada gutano aan is dhaafina gumaysiga ma insha allah waxaa laga yaabaa sida hadda maaragtay ay risaalada qayb noo soo gaadhay intaasina noo soo gaadho marka haddii ilaahay idinka laftiina hana fogeynina bal hadda intaan wadnaa waa wax wanaagsane lasoo dhaweeyo allamay kollaba idinma riixayna anagu cid kasta oo gumaysiga kasoo horjeeda qayb ka mid a qaybta kalena waan iska wada diidi doonaa waanu garbaan soomaaliyana usoo ducee in ilaahay cadowga iyo maxay ahayday qoladan carabta ee diracyada noo soo gashatay iyo etoobiyada hoosta shaarka ka xidhatay inuu ilaahay naga qabto ilaahay mid nooga dhigo ilaahay noo soo baryo soomaalinimaan raadinayna annagu qabiil iyo qolo midna ma doonayno maya db woman insha allah db woman way iska tegaysaa waa db woman baan u dhahaa moogta db walba dhaho db woman baan adu wax kasii daranna way tahay insha allah soomaalina allaha guuleeyaan leenahay waxay samaynaha ka aamin guul mee guul iyo gobonnimo insha allah in badan baan kugu dheeraaday raalli ahaa ummadda kalena wax ka sii khayr badan baan kuu rajeynaya assalaamu calaykum burxan cabdirasaaq xasan burxan maxamed farciyo cumar nasir jamaal aymar dhammaan way soo dhaweynaya ayaa kaloo ku xigsanayo aan soo qabtaa khiyaarta soo dhawaada waxa weeyaan sayga seeyada baa loo bixinayaa hadda kadib sayga seeyada miyaa magacii adigu waxaa la isku raacaan umaanayaa sayga madaxweyne ku-xigeenada doodannadu waa badnayd waxay meelo badan bay soo martay laakiin waxaa ugu darnayd magac bixintii aaniga aan u raadina madaxweyne ku-xigeenada xaajigeeda maxaa loogu yeeraa soomaalaay annagoon ka xumayn heerka ay gaadhay gabadhaas dhalinyarada ah oo waxa weeyaan xilka madaxweyne ku-xigeenka deegaanka haysa haddana waxaan rabnaa sida madaxweynaha xaaskiisa marwada koowaad ee madaxweynaha loo yiri inaan magac u helno sayga madaxweyne ku-xigeenada ma waxaan ahnaa sayga madaxweyne ku-xigeenada ma waxaan ahnaa sayga seeyada sayga koowaad ee seeyada miyaan ahnaa sayga koowaad ee seeyada maadaama iyo marwada koowaad ee maaragtay marweyn farxiyo xuseen soo dhawow yaa soo qabtaa oo barnaamijka kusoo dhaweeya oo ka hadlaya tacadiga iyo dhibaatada deegaamada d d s i ka jira maxaa waxa weye sidee looga gudbi karaa maxaa kaa soo qabsaday adiga maxaad ka soo aragtay maxaad kala kulantay bal dhacdooyinkii aad maaragtay qaybna u taagneed qaybna maqashay nala wadaag fadlan yaan soo qabtaayo arrimaha nagala maaragtay nala wadaagayo oo aanu ka wada maaragtay bal isweydiinaa wuxuu maaragtay maxaad uga soo joogtay d d s i maxaad d d s i uga soo joogtay maxaad xal u aragtaa ma taageersan tahay yani xukuumadda d d s i oo xilyo xididtinimo oo ma noo sharaxi kadhaa waxaad ku taageersan tahay dhammaan su-aalahaasi waa su-aalo maaragtay noo furan anagu ma fogeyneyno ma diideyno meeyo qolyihii taageeri jiray d d s i yani ma kala carareen taageerayaashii xukuumadda xilyo xididtinimo gujoog ma hayee ma haysaa yaan soo qabtaa diyaara daljire ku jira
daljira waxaan marayaa wuu baxay yaa kaloo soo qabtaa oo diyaara soo dalbada fadlan lala soo qabsay barnaamijka nagala qayb qaato maxaa loo aamusay war xitaa haddaad muuqaaga maaragtay u baqaysid waad maaragtay waad qarin kartaa laakiin maaragtay kusoo dhawow barnaamijka oo waxaweye haddaad taageersan tahayna ka hadal oo taageeradaada sababtaad ku taageerdhay noo sheeg waxaweye ku diidi mayno waan kusoo dhaweyneynaa waxa weeyaan waxaa tahay yani ma diideyno haddaad taageero tahay taageer xaqood u leedahay inaad taageerid haddaad mucaarad bahakaliyaado mucaarad tahay oo diidan tahay oo kasoo horjeeto ayadana waa kusoo dhaweyneynaa yani dhammaan dadku waa isugu kaayamid ma jirto qolo maaragtay aan gaar usoo dhaweyneynaa muhiimaddu waxa weeyaan inaanu isla fahamno war waxani ma sharci baa ama xaq baa in dumarka la caayo in la maaragtay hooyooyinka la xirxiro in aabayaasha la xirxiro in waxa weeyaan sharcigii inta la baalmaro xukuumaddu ay xeer ka dhigato xidid iyo xigaalo oo waxa weeyaan xilkii laisugu magacaabayo xukuumadda xidid ma la tahay oo xigaalo ma tihiin oo xun ma wadaagtaan marka waxa weeyaan halkii ay shala ahayd in maaragtay xilka la isugu dhiibo aqoonta qofku oo la qiimeeyo maanta ay mareyso wasiirada ninka la yihahdo cabdi maxamed cumar ku heeran maaragtay xidid iyo xigaalo aan u bixinay xukuumadda xidid xigaalo u bixinay meelna ma kasoo gashaa oo waxa weeyaan xigaalo ma la tahay ama xidid ma la tahay marka waxa weeyaan walaale xasan cabdullaahi waa kusoo dhaweynaya aqoon-yahan aad baan kuu soo dhaweynaya waan jeclaan lahaa inaad soo qabsatid mayga oo maaragtay aad nagala qayb qaatid barnaamijka walaalayaal waxa weeyaan deegaankanagii iyo waxa weeyaan soomaali guud ahaanba annaga ayay waxay nooga baahan tahay haddaan soomaalinahay inaanu si wanaagsan oo maaragtay caqliyana oo maaragtay aqooni ku dheehan tahay uga hadalno dhibaatada iyo maaragtay burburka iyo tacadiga ka jira khaasatan hadda anaga taargetku wuxuu noo yahay deegaanka soomaalida ee maaragtay bariga Ethiopia deegaankaas oo waxa weeyaan tacadiyo badan oo maaragtay iyo dhibaato badan iyo maaragtay dadkii oo waxa weeye qaar xabsi loo diray qaar waxa weeyaan xabaal loo diray qaar waxa weeyaan xoolahoodii maaragtay la xalaaleystay oo maaragtay haddana dabool la raba in la saaro oo xukuumadda xilligeedinimo guddoog ee waxa weeyaan madaxweynaha iyo caa'iladiisa iyo inta xididka laahay ay deegaanka xukumaan taasoo waxa weeyaan aan Soomaali xeerna u ahayn waxa weeye adduunkana aan ka dhicin sidoo kale waxyaalaha aan la yaabnay waxaa ka mid ah in dadkii waxa weeyaan markii la waayay qoladii xukuumadda kasoo horjeestay oo maaragtay fikirkooda iyo aragtidooda ka hadlay dhibaatada deegaanka ka jirta markii ayagii la waayay dadkoodii eeladoodii la xiray waxaan weli aan maaragtay xabsiga ku jiro oo aan aad uga xunaay oo u dambeeyo qof la xiro oo waxa weeye laba jeer markii labaad la xiray ayuu dad badan xiran yihiin waan ka xunaay dadkaas xiran oo maaragtay maxaabiista xaqdarada lagu xiray shakhsiga hadda u dambeeyay ee la xiray wuxuu ahaa cabdifatax jabac oo gudoomiyaha dhalinyarada dulmidiid aabihiis sidoo kale waxaa horey u xirnaa iyaguna cabdirashiid cali shucaa maaragtay eheladiis dhammaan dadkaasi waxay leeyihiin maxaa wiilashiina u hadleen maxay afaarahanaga iyo maaragtay dhibaatada aan deegaanka ku hayno uga hadleen sidoo kale dadkii ayaa waxaa laga xiray khadkii internetka yani halkan waxaad ka garanaysaa in meeshan wax la daboolayo ayaad halkan ka garanaysaa sidaa daraaddeed waxaa la daboolayo si aanu diirka uga qaadno ummadana ula wadaagno ayaanu annana maaragtay usoo bambaxnay ama maaragtay banaanka usoo dhigno
dhibaatooyinkaa jira. cid afkana qaban kadha iyo cid maaragtay hujumi kadhaana ma jirto. haddaba walaalayaal si aad nogala qayb qaadataan barnaamijkaas waxaan jeclaan lahay inaad mayga soo qabsataan kana doodaan barnaamijka oo aad bareerihiina ka dhiibataan. haddii aad doontid oo wejigaaga aad la baqaysid ama bahalkan yahda dadka caa'iladaada ay deegaankii jiraan ayadana waxa weeyaan waa kuu tixgelinaynaa wejigaagana inaad qasatid maarata ammaan maaha. haddaba nala wadaag fikirkaaga iyo waxaad ka qabtid dhibaatada uu cabdi maxamed cumar iyo xukuumaddiisa xil iyo xidhiidhnimo dadka shacabka ku haya. galaydship waxaan umalaynayaa galaydship waa kusoo qabtay connected buu ku hayaa insha allah. galaydship makadkaaga culus connected ayuu ku hayaa maraan mar labaad kugu soo cesho insha allah mar labaad igu soo codsida. waxaan soo qabanayaa isagana caliyare ayaa soo qabanayaa. caliyare soo dhawow caliyare. waxaan filayaa inaanan saaxiib ku ahayn decline ayaa tiri caliyare, marka waxaan filayaa inay dhibaatada keenayso oo aanan saaxiib ku ahayn facebooka. marka bal aan ku cesho. galaydship waa kusoo qabtay connecting ayuu ku hayaa waxaan filayaa malaha waxaana saaxiib ku ahayn facebooka. okay aan kusoo qabto anaa markaan kusoo qabtay galay accepted. galay waa kusoo qabtay waad aqbali laadahay weli idana wax qaldan. galay ilaa hadda waa kusoo qaban laahay. maakan walaalo anigu waa kusoo qabtay adiga waxaan umanayaa waxaana saaxiib ku ahayn xagga facebooka. hadda ad igu soo darsataan umalaynayaa marka waxay noqonaysaa inaan maaragtay kusoo aqbalo hadhow markaan ku aqbalo baad maaragtay igu soo mahadcelin karnaa. bal jar oo ka baxo kusoo noqo.
mudane waa ku xumahay waa ku guuleysan waaye inaan kusoo qabto adna iisoo gasid ilaa hadda xitaa waa maaragtay waa taragaraynayaa laakiin waa suurtageli leedahay okay walaalayaal marka waxa weeyaan waqtiguna waa maaragtay waa inagu sii socdaa waxaana moodaa inaan maaragtay dadka diyaarka ah ay nagu yaryihiin inay hawshan ka hadlaan maaga wax laga baqayo wala baqinina waxa laga hadlayaa ama maaragtay aan ka doodayna waa mustaqbalkaadi waxaan rabnaa haddaad taageero tahay iyo haddaad maaragtay mucaarad tahayba inaan maaragtay nala wadaagtid fikirkaaga ma diideyno inaad mucaarad nagu noqoto ma diideyno inaad maaragtay fikrada qaarkood maaragtay aan ku kala duwanaan karno waxaa oo dhan ma diideyno marka isku day inaad sida aan dareemayno dareentid isku day mudane galayr waan ka xumahay walaalo oo ku guuleysan laanahay ilaa iyo hadda inaan soo qabanno mudanayaal iyo marwoyin waxa weeyaan aad baan idin salaamayaa insha allah waynoo soo socon doonaa barnaamijkani iyo barnaamijyo kaloo kamid a oo waxa weeyaan aanu kaga hadlayna dhibaatada iyo tacadiga dadka lagu hayo xukuumadda xilli xidhiidhnimo maaragtay ku-joog ee cabdi maxamed cumar iyo maaragtay xigaaladiisa iyo xididka inta laahi ay ku hayaan deegaanka sidoo kale ilaa iyo hadda waxaa loo maaragtay magac baxin aan ula anahay ama hal erey oo toosu ku habboon ula anahay madaxweyne ku-xigeenada marwada madaxweyne ku-xigeenada xaajigeeda magacii aan ugu yeeri waxa weeyaan maalinba soomaaliga erey ayaa kusoo kordha maalinba waxa weeyaan wax cusub ayaa kusoo kordha sidaa daraaddeed waxa weeyaan way fiicnaan lahayd in magac bixin loo sameeyo haddaba xukuumadda xil iyo xidhiidhnimo gudiid ereyada ay nagu soo siyaadin doonto ama maaragtay magac bixinta cusub ay keentay ayaa waxaa ka mid ah bal haddii maaragtay madaxweynihii marwadiisii la yiri marwada koowaad ee madaxweynaha sidoo kalena in loo helo madaxweyne ku-xigeenada xaajigeeda in asnaguna magac yeesho ama magac u yeesho walaalayaal tacadiyada ay ku hayaan deegaanka waxaa ka mid ah xukuumadda xil iyo xidhiidhnimo ku-joog inay dadkii dhagihii xireen inay dadkii dhaga tireen bal imagine firi qofka bini aadanka meel la qabto waxaa u daran dhagaha indhaha iyo afka awal waxa weeye dadka afkaa la hayay indhahana waa la hayay laakiin dhaga ay wax ku maqlaan bay lahaayeen maantayto cabdi maxamed cumar iyo raggiisu waxay sameeyeen in dadkii ay dhagihii ka xidheen dhagaha sidee bay uga xidheen dhagaha waxay uga xidheen dadku waxay daawan jireen ama la socon jireen social media waxay kala socon jireen dhaqdhaqaaqyada dunida ka jira waxay kala socon jireen akhbaaraadka caalamka waxay kala socon jireen waxyaalaha iyaga u gaarka ee qoseeya walaalayaal maantayto waxay mareysaa in la dhagatiray dadkii dhan oo la indhatiray oo afkii laga xiray oo sankii laga xiray maanta waxay mareysaa in la yidhaahdo gobolka doollo iyo gobollada la midkaaba in dad gaara ama ashkaas gaara loo xiro cuntadii maanta waxay mareysaa in la yidhaahdo qofkii nala soo hadla ama wax naga soo sheega ama fikirka naga kasoo horjeeda waa daalin waa nabadiid waa hormadiid waa alqusaas maanta waxay mareysaa markii xigaaladaada la waayo oo waxa weeyaan dad badan xigaaladooda markii la xiray qaarkii xigaaladooda la waayey in xididkooda la xirayo soomaalida dhaqankeedii ama reergooga dhaqankiisa ayaa wuxuu ahaa markii dekana la isu qabto ama la kala dekanaysanaya waxaa dekanada loo maaragtay loo samayn jiray hebel yaa ugu dhow yaa tolkiisa yaa inadeerkiisa yaa inadeer koobaadkiisa yaa inadeer labaadkiisa yaa inadeer saddexaadkiisa laakiin dunida weli kamay dhicin ama soomaaliya kamay dhicin ama dhaqanka soomaali may ahayn hebel yaa la xidida in lagu dekanayo waa ceeb bay ahayd laakiin hadda walaalayaal maxaan ka sugaynaa ninka dumarka soo ijaabteeyey ninka hooyada xiray ninka walaalka xiray ninka
يعني qofka ku xiraya maxaad wax iiga sheegtay maxaa ehelkaa wax iiga soo sheegay ninka wax ku xiraya maxaanu kaloo ka sugeynaa walaalayaal waxaan ilaahay ka baryeennaa iyo maaragtay in ilaahay maaragtay yaan qofkii u baahan inaad soo qabto waa soo qabanaya urursho kacaan soo dhawow walaalayaal waxa weeyaan maantayto aan ilaahay u barino ilaahay inuu bedel khayr qabana siiyo oo waxa weeyaan umul khayr alla jecel soo dhow walaalo taageere iyo mucaarad waxaa tahay waan kusoo dhaweynayaa maantayto waxa weeyaan ilaahay waxaanu ka baryeennaa ama ilaahay ka rajaynaynaa ama maaragtay aan ilaahay u hoos joognaa in ilaahay bedel khayr qabana siiyo waxa weeyaan waxaa soomaalidu samaysaa waxay tahay ilaahu hebel laga bedel ilaahu hebel laga bedel ilaahu laakiin laguma daro ilaahu hebel laga bedelo mid khayr qaba noogu bedel sidaa daraaddeed waxaan leenahay ilaahu cabdi maxamed cumar ummadda ka qabo oo ilaahu mid khayr qaba ugu bedel ilaahu cabdi maxamed cumar ummadda ka qabo oo ilaahu mid khayr qaba ugu bedel walaalayaal tacaddi kasta oo ummad lagula kaco ama dhibaato kasta oo ummad loo geysto way ka dhacday deegaanka DDSI waxa weeyaan soomaalida dhaqankeeda wax aan ahayn ayaa ka dhacay sida waxa weeyaan in dad inta la soo qabto oo shir la soo shiriyo oo dhalinyaro masaakiin oo waxa weeyaan dadkii magaalada jamacadaha ka midka ah la soo taago in la yiraahdo waxaad afkiina ka tiraadaan xoolaha ayaan u tegi jiray taa iyadoo la yaabay haddana waxaa dhacday nin sodogo oo weyn inta la soo qabtay in la yiri gabadhii sodogo aad u ahayd oo hebla ahayd cay wayna soo cayday taa waa laga soo gudbay haddana waxaa la soo gaaray in nin inta la soo fariisiiyey nin inaadeerkiisa oo dibadda jiray ilaaday ebel waxaad ku tiraahdaa ilmaha guriga kuu jooga adigu ma dhalin aniga ayaa kuu dhalay taa waa laga soo gudbay tacadigu wuxuu gaaray inta la soo qabto nin dhalinyaro ah oo waxa weeyaan xaaskiisu ay shir ka qayb gashay in la yidhahdo heblo xaaskaagii oo dibadda joogta ayaa shirki dulmidid ka qayb gashay waa inaad hawada ka fudhaa life adigoo lagu wada jooga waa inaad furtaa taa waxaa ka dambeysay in salaadiintii iyo dadkii maaragtay xurmada lahaa ee waxa weeye maaragtay aadka loo ilaalin jiray ayagana la afagaadiyey waxaa taa kasii dambeysay in gabdhihii sharafta lahaa ee dumarkii ee walaalaheen ahaa ee na dhalay ee noo dhacay ee aanu dhalnay ee nala dhashay ayagana waxa weeyaan laga soo aflagaadeeyo jigjiga yaa soo aflagaadeeniye waxaa soo aflagaadeeniye dad uu soo keliisay cabdi maxamed cumar iyo laftiisa oo inta shirarka qaarkood soo fariista yani afcad u lahaa ree hebel dumarkoodu waxa weeyaan ma banaana in la guursado oo waxa weeyaan way maaragtay nabadiid bay noqdeen oo qashin bay noqdeen marka dumarka ree hebel yaa la guursan walaalayaal waxaas oo dhan markaan la yaabo haddana waxaan aad uga sii yaabaa ninka walaashii la caayayay ninka aabihii la caayayay ninka walaalkii la caayayay ninka inadeerkii la caayay ee ninkii caayay ee shahwada cabaya waxa weeyaan walaalkaa waa la caayi karaa aabbaha waa la caayi karaa ehelkaa waa la caayi karaa xaaskaaga waa la caayi karaa laakiin waxaa meesha ka baxsay ninkii caayay inuusan kula fadhin oo fadhi kula wadaagin soomaalidu waxaa la yidhi ingiriisku markii uu maaragtay ka baxayay dardaarankii uu talyaaniga siiyey ayaa waxaa ka mid ahayd soomaalida wax allaale iyo waxaa doonta ku sameeya laakiin dumarka iyo geela midna ha ka dhicin bal eeg dumarka iyo geela soomaalida marnaba ha isku dayin inaad maaragtay faraha la gesho maantayta waxa weeyaan cabdi maxamed cumar iyo xukuumaddiisa xil iyo xidatinimo gudoog iyo xisbigiisa qorshihii marqaanka ee qaadirada lumisay weligiiba qallabantay qorshihiisu yahay dumarkii waa soo caayeen dumarkii waa soo xireen geelina waa dhaceen geelina waa qaseen wax u haray soomaalida maanta deegaanka ku nool ma jirto waxaan haddaba leenahay soomaalida DDSI idinka oon qori qaadan idinka oon waxa weeyaan qabuura sii siyaadin inta kacdaan oo kacdoo samaysaan qowlkiina iyo qalinkiina ku caanamaala waxa weeyaan dhibashadu ilaahay ayaa noo qoray maana dhaafi maysid xilligaa dhimanaysid yani ma dhaafaysid sidaa daraaddeed waxaad ogaataan oromoba ayagoo aan qori wada ayay inta soo baxeen sidaa ayay yidhaahdeen annagu waxaan leenahay haddaan nahay dulmidid waxaan leenahay nashqadaas maadaama ay oromo kusoo caanabaashay annagu sidan ayaan leenahay gacmaha dhabarka saas sidaa waa inaad gadaal u qabataan walaalayaal gadaal waa inaad gacmaha u qabataan gacmaha waa inaad sidaa gadaal ugu qabataan oo tirahdaan waan gardaduubanna jiriya waa inaad tirahdaan waan gardaduubanna sidaa waa inaad tirahdaan dhammaan waxaan u sheegayaa reer dulmidiid in calaamad laga dhigto gardaduub in la tuso dadka in dadku gardaduuban yihiin
sidoo kale waxaad kaloo maaragtay muujisaan in afkana laga xiray ayana calaamad waa inaan ka dhigana sidaa markii aad yeeshaan waxa weeyaan dad malagood galay ayaa dhimanaya laakiin waxaa ka dambaysa guul iyo gobonimo in la gaaro in cabdi maxamed cumar iyo cabdi ilay ninkaa lagu yiraahdo iyo raggiisa in laga guulaysto haddaba walaalayaal kacdoon aan loo dhiman kacdoon aan qabri loo gelin kacdoon aan xabaal loo gelin idina ma xisho waxaan soo jeedinayaa dulmidiid dibadaha iyo dulmidiid gudaha intuba inay isku ficil noqdaan in sida jawar uu amarkiisu uga shaqeeyo deegaamada oromiya oo maanta marayo inuu yidhi dhaqdhaqaaqa ama shidaalka hala joojiyo oo ay hirgashay in dadkeena dulmidiidka ee gudaha ku noolna iyaguna ay sidaas kale amarada dulmidiid kasoo baxay ay u qaataan iyaga oo waxa weeyaan wax xuba iyo wax dila iyo wax bahalkii aan samaynayn laakiin ku muujinaya kacdoonkooda ficil waxaan ilaa iyo hadda idinka sugeynaa ama qaar ka mida na soo gaareen ficilada maaragtay gurracaan ee ay ku kacayaan xukuumadda DDSI xukuumadda xil iyo xidhiidhnimo ku joog iyo xisbigeeda qorshihii marqaanka iyo qaadirada lumisay weligeed ballibantaanba inaad noo soo gudbisaan falalka xun ay ku kacayaan idinka oo hoos u duubaya oo waxa weeyaan aan laydin dareemayn ma doonayno wax noloshiina iyo nabadgelyadiina khatar gelinaya haddaba walaalayaal nala wadaaga dhacdooyinka u dambeeyey iyo kuwii u horreeyey ee deegaanka si aan annaguna ugu soo bandhigno bulshada caalamka oo social mediaha iyo maaragtay tviyada ula wadaagno waxa weeyaan ma noqon doono kuwo magaciina baahiya ma noqon doono kuwo la wadaaga ummad kale ma noqon doono xitaa annaga dhexdayada inaan isla wadaagno magacyadiina oo aanana warbixinta hebel baa iisoo diray sababto ay tahay waxa weeyaan wixii qof maqlo oo qof labaad maqlaa ummadoo dhan way ogyihiin laakiin wixii qof maqlo oo qofkan ku ekaataa qofna ma oga aad ayaan idiin salaamayaa guul iyo gobonimo idiin rajeynayaa waxa weeyaan guul insha allah khayr ayaan rajeynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu